بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان الكريم مروجين يمضن يا المال ولباء جوكتان كسو دواذا وركة تي في قروية لو فافاسا وحونا حلقان إذا كاقا إيمانا يا استوديها قلبات كمقالة لندن دالك بريطان وحانا الديارة وركة إنو دي لسعودسي أنيقوا محمد عبد علي داعد مناسبة تببر لوغو سو حيريي إذا ما كترسن مامولك أهل السنة والجماعة gobolada dhexe ayaa maanta ka dhacday deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud halkaasina waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan culumaa u diinka ahlus sunna wal jamaa fafaahinta warkaasi waxaa deegaanka Xeraale inooga soo diray wariyaha TV-ga Royal Galgaduud Maxamed Cabdulqaadir Salaad kadib munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Xeraale sida ururada haweenka dhalinyarada culumaa u diinka maamulka dawladda ee deegaanka Xeraale iyo madax sare oo ka tirsan maamulka culumaa u diinka ahlus sunna wal jamaa ayaa waxaa tababar loogu soo xiray 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada culumaa u diinka ahlus sunna wal jamaa gobolada dhexe dalka Soomaaliya iyadoona xafladda tababarka loogu soo xiray ciidamada ahlus sunna lagu soo gabagabeeyay xus ahlus sunna ay u sameeynayay toddobaadkani ciidamadii ku nafwaayay dagaaladii ay kala soo horjeedeen al-shabaab tan iyo markii dagaaladu ay ka bilowdeen gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ugu horeyntii ayaa munaasabada waxaa hadallo kooban ka jeediyay Sheekh Mursal Sheekh Cabdiraxmaan madaxa arrimaha dibadda ee maamulka ahlus sunna wal jamaa gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya si aad arkayseen ciidamada Xeraale waxaa lagu soo gabagabeeyay سلام مركز مع الوجود حسي وارثين واحد تران قبل الدحاء وشنا والجماعة ما استعبرك الله صحيح بعيد كل وقت سوى كل واحد رأينا مناسبة نقول في استباق عن الجراحية دولة الصومالية وعن لا حي gacansi wada iyo horumarka ka jira gobolada dhexe Soomaaliya sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay Macallin Maxamuud Sheekh Xasan gudoomiyaha guud ee culumaa u diinka ahlus sunna wal jamaa waxaan jeclahay in aan u cadeeyo caalamka kale cid aan fogeynayna haba yaraatee ma jiro mas'uuliyadda aan leenahay waxa weeye inaan ummadda islaamka ah isugu yeerno inaan ummadda caqiidada saliimka ah tusno inaan caqaa'idka faasidka ah iyo waxa wax baabi'inayo ilaahay diintiisii iyo dadkii ahalkeeda ahaa maalin walba gurahaya inaan ka hortagno ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay Bashir Dahri Yuusuf gudoomiyaha deegaanka Xeraale isagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin in deegaanka Xeraale munaasabadan tababarka ciidamada loogu soo xiray lagu qabto deegaankooda Maxamed Cabdulqaadir Salaad Royal TV Xeraale.